لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة. وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى. أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii tixraaca tabiya islaamka ood kala socotaan idaacadda hirsamo. ممنوع ذاك حرام. فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير. ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. barnaamijkeena maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonaa qisadii maryama bintu cimraan oo ka mid ah haweenkii ina sharafta badnaa ee lagu sheegay qur-aankeena kariimka islamarkaana loogu magac daray suuradan oo ka mid ah suuradaha qur-aanka. waana hooyadii nebi ciise calayhi salaam, waana hooyadii dhashay nebi ciise aabala-aan. waxaan idinkugu soo gudbin doonaa qisadeeda oo dhammaystiran islamarkaana waxaan idiin soo gudbin doonaa qayba maalin. maantase waynu sii gudagelaynaa annagoo ka bilaabi doono dhalashadii maryama bintu cimraan. dumarka ugu qayrka badan adduunka waa afar: waa aasiya bintu musaaxim, maryama bintu cimraan, bintu quwaylid iyo faadima rasuul sallallahu calayhi wasallam. insha allah waxaan ka warrami doonaa mid ka mid ah dumarkan. waa maryama bintu cimraan oo ah nebi ciise hooyadii. maryama waxay tusaale u tahay dhammaan mu'miniinta, rag iyo dumarba. waxaa doortay allah subxaana wa tacaala, waxaanuu ka doortay dhammaan dumarka caalamiinta. maryama sharafteeda iyo karaamadeeda waxaa ina tusaya inuu allah ku magacaabay suurad dhan oo qur-aanka kariimka ah, waana suuradda 19aad ee suuratu maryama. sababtuna waa si loo aqriyo ilaa maayo ay qiyaamahu ka dhacayo. qisada maryama waxay xigsanaysaa qoyska ay ka soo jeedo. waxay ku abtirsataa nebi sulaymaan calayhi salaam. nebi sulaymaanna waxa uu ka soo jeedaa duriyadii nebi ibraahim. nebi ibraahimna waxa uu ka soo jeedaa duriyadii nebi nuux. sidaan ogsoonnahay marka ay dhacday duufaantii halaagtay qoomkii nebi nuux, waxa kaliya oo ka soo faracmay qoomkaasi waa nebi nuux. sidaa darteed dhammaan basharka nool waxay sii maraan nebi nuux calayhi salaam, sida uu allah inoo tilmaamayo in ilaahay uu doortay nebi aadam, kadibna nebi nuux, kadibna nebi ibraahim, kadibna reer al cimraan oo ay ka soo jeedo maryama bintu cimraan. allah waxa uu leeyahay suuradda 3aad ee suuratul cimraan aayadeeda 32: kadibna nuux, kadibna ehelkii ibraahim iyo ehelkii cimraan caalamka oo dhan. cimraan waa nin reer bani israa'iil ah, kuna caanbaxay cibaado iyo alla ka cabsi. reer bani israa'iil oo dhan waxay ku yaqaaneen inuu cimraan yahay nin adduunyada ka sagootiyey ilaahay xuskiisa badsaday. wuxuuna noolaa xilligii uu reer bani israa'iil nebigu u ahaa nebi zakariye. xaaska ninkan wanaagsan ee cimraan waxay ahayd ayaduna gabadh lagu yaqaana alla ka cabsi iyo dhowrsanaan. maalin maalmaha ka mida ayaa marwadii cimraan aragtay shimbir quudinaysa shimbir ay dhashay. markay aragtay jawigaas hooyanimo ayay jeclaysatay inay dhasho wiil u adeega beydka maqdiska. waxayna tiri ayadoo hadalkeeda ilaahay inoogu waramayo suuradda 3aad ee al cimraan: xasuuso markay tiri haweenaydii cimraan, eebbow waxaan kuugu nadray waxa uurkayga ku jira inuu xor kuu ahaado ama cibaado, bal adigu uunbaa wax maqlo wax oga xaaskii cimraan waxay jecleed inay dhasho wiil u adeega masaajidka si uu uga qayb qaato nadiifinta masaajidka iyo quudinta masaakiinta, sidoo kalena uu cilmi u siyaadsado oo uu noqdo ruux ilaahay ka cabsada. kaasi waxa uu ahaa hamigii iyo riyadii marwadii cimraan, balse siday rabtay arrinkii muusan noqon ee waxay uurka ku qaaday gabadhuna kumaysan habboonayn inay u adeegto masaajidka qudus. muddo yar kadib waxaa la gaaray xilligii foosha, waxayna umushay gabadh. markaasay tiri rabbiyow waxaanu mulay gabadhuna sida wiilka oo kale maaha, oo way kala duwan yihiin jidh ahaan iyo garaad ahaanba. mid kasta shaqo ku habboon ayuu ilaahay ugu talagalay. allah oo inooga waramaya waxa uu ku leeyahay aayaddii ay dhashay gabar waxay tiri eebbo waxaan dhalay dhidig, eebbana waa ogyahay waxay dhashay, lana la mid ma aha dhidig, waxaana ku magacaabay, waxaana kaa magangelin iyada iyo faraceeda shaydaanka la fogeeyey.
waana aayadda 36 ee suuratul Cimraan. maryama hooyadeed oo ahayd marwadii Cimraan waxay u bixisay gabadhii ay dhashay Maryama, waxayna ilaahay ka magan gashay inuu ka ilaaliyo shaydaanka iyada iyo faraceedaba. ilaahayna waa ka aqbalay ducadii marwadii Cimraan oo waa ka dhowray Maryama iyo wiilkeedii Nabi Ciisaba shaydaanka la fogeeyay, sida uu Abu Hurayra ka warinayay rasuulkeena Maxamed nabadgelyo naxariis dushiisa ilaahay ha yeelay oo uu leeyahay ilmo kasta oo la dhalo waxa nuujiya oo taabta shaydaanka markuu dhalanayo, kolkaasuu ka qayliyaa ama ooyaa. taabashada shaydaanka marka laga reebo Maryama iyo wiilka catabihii islaamka ood kala socoteen idaacadda Hirsabo, waxaadna barnaamijkan ka dheehan kartaan page-ka islaamiga ee Radio Darajo iyo sidoo kale page-keena Radio Hirsabo iyo sidoo kale channelka idaacadda ee Hirsabo Tube Media. intaanu dib u kulmi doono barnaamijkan kiis xiga, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadiino noole kulanti oo xiiso leh. ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما